Norway ayaa sanadkan 2025 waxa uu u noqonayaa sanadkii ugu yaraa oo ay dilal toogasho ah ka dhacaan. Arrintan ayay khubarada baaritaanada iyo tirakoobka ku saabsan dhanka dilalka ka dhaca dalka Norway waxa ay sheegayaan in sanadkan lagu dilay guud ahaan dalka Norway 16 qofood, 15 kiis oo kala duwan oo dil ah ka oo dhacay sanadkan aynu ku jirno ee sii dhamaanaya ee 2025. Tiradan ayaa waxa ay ka hooseysaa 21 qofood marka loo eego sanadkii ka sii horeeyay, waxayna arrintan tahay mid ay soo dhaweynayaan maadaama laga soo bilaabo 1990 ilaa iyo hadda la waday baaritaanada iyo tirakoobka dilalka ka dhacaya dalka Norway si sanadle ah. Solveig Keren oo ah barofesorad iyo khabiirad dhanka cilmi nafsiga sidoo kalena ka tirsan isbitaalka jaamacadda Oslo iyo kulliyadda jaamacadda Molde ayaa ku waramayso in ay aad hoos ugu dhacday dilalka ka dhacaya dalka Norway markii loo eego sanadkii hore. Waxa ayna sheegtay sanadkii hore bishii Oktoobar in dilalka ka dhacay Norway ay mareysay 33 qofood halka Oktoobar 2025 ay ilaa iyo hadda mareyso 16 qofood oo ka dhigan in laba jibaar wax ka badan ay hoos u dhacday dilalkii dhacay sanadkii hore marka loo fiiriyo. Arrintan ayay ku tilmaantay in ay tahay wax la soo dhaweeyo, ha yeeshee waxa ay intaa ku dartay in uusan sanadka weli dhammaan, taa oo laga yaabo in ay sii korodho ama ay halkeeda ku ekaato. Sanadihii 2015 iyo 2021 ayaa ahaa kuwii ugu yaraa ee la diiwaan geliyay tirakoobka dilalka ka dhaca dalka Norway, waxa uuna sanadkii 2015 ahaa kii ugu yaraa ee ay dilal ka dhacaan dalka Norway, waxaana guud ahaan dalka Norway 2015 lagu dilay ilaa iyo 21 qofood, 20 kiis oo dil ah oo ka dhacay dalka Norway. Sanadkan sii dhamaanaya ayaa hadda waxa uu marayaa 16 qofood, waxaana ka dhiman bil kaliya, taa oo haddii uusan dilal kale ka dhicin ama ay ka hoos marto 21 ay noqon doonto sanadkii ugu yaraa dilalka ka dhacay dalka Norway laga soo bilaabo 90-meeyadii. Arrintan ayay soo dhaweeyeen khubarada iyo machadka baaritaanka joogtada ku hayo kiisaska dilalka ee ka dhaca dalka Norway sanad walba. Waxa ayna arrintan sheegeen in ay tahay mid la soo dhaweeyo, ha yeeshee waxa ay intaa ku dareen in sanadihii 2022 iyo 2023 ay ahaayeen kuwii ugu badnaa ee ay dilal ka dhacaan dalka Norway, taa oo ay sheegeen in ay markaasi kor u kaceen. Ha yeeshee sanadkan 2025 ayay ku nuuxnuuxsadeen in uu yahay sanad uu dhacay dilka ugu yar ee ka dhaca dalka Norway, waxayna intaa ku dareen in aysan sii saadaali karin in sanadaha ka dambeeya ay ka sii yaraan doonaan ama ay ka sii badan doonaan. Ha yeeshee nidaamka kala duwan ee Norway, hay'adaha amniga iyo bulshooyinka qaybahooda kala duwanba ay ku dadaalayaan sidii loo dhimi lahaa loona yareyn lahaa in uu dil ka dhaco dalka Norway. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.